عبد محمد عمر خطيبك إمامك مساجد جوين إن يروح يلا سنسري متبقى أن محاضرين كي يكسر الجلاء أو تقانا تعريف اللي قبلين محاضرات ما تبقى إمامك الكبير وهو دندية إيو هذا قفك إيو برشاد إلهي بأمهاتك تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تعد نعموينكي سفرها بدن iyo galadaha aan la tiro koobi karin Ilaahay inoo galay tabaaraka wa tacaala ayuu ku mahadsan yahay waxa ugu qiimo badan sidaan marar badan tilmaanay uguna qaalisan uguna weyn nicmada iimaanka iyo islaamnimada iyo Ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ku waafajiyo ama kugu daro adoomada uu doortay oo uu doortay iimaanka iyo khayrka iyo taacadiis darsigeena oo muxaadarada cinwaankeeda sida sheekhu uu sheegay waa آثار المعاصي على الفرد أو على الأفراد والمجتمعات رادك أما رادتك حن الدنبية كليهين أما كرهبيان أما كجتجيان روح الدنبية السمائي هي مجتمع هي بالشدة وحنكسرنا هي الله تبارك وتعالى شيء إنه مدي ذو إنك مرهبه إلا waxa loo reebay buu qabaa wax iska daaya leeyna yiri dhibaatada ku jirta darteedu baa leeynagu diiday ama dhibaato khaalisa oo baraxla baa ku jirta ama dhibaato dheefta iyo faa'iidada ku jirta ka weyn oo ka dhib badan ayaa ku jirta laakiin shay Ilaahay reebay ama ha noqdo i'tiqaad ama han noqdo amal ama hal sama han noqdo wax lagu hadlo ama han noqdo wax la cuno ama han noqdo waxyaabaha kale bini aadamku uu sameeyo wax Ilaahay reebay wuxuu u reebay buu qabaa dhibaato ku jirta dhibaatadaasi waxay noqon kartaa ama dhibaato ruuxa sameynaya arinta laga reebayo isaga soo gaari karta ama dhibaato isaga intay dhaafto mujtamaca iyo bulshada saameyn karta waxay noqon kartaa dhibaato soo degdegta oo adduunka saameysa waxayna noqon kartaa mid dib dhacda oo kharar timaada oo gadaal ka timaadana way suroobi kartaa sidaas daraadeed dambiyada Ilaahay inaga reebay tabaaraka wa tacaala oo shirkiga iyo gaalnimadu u weynta ilaa kuwa ugu yar yar noocay dooniba ha noqdeen waxay leeyihiin raad aad u xun bay ku leeyihiin ruuxa dambiga sameynaya iyo mujtamaca intaba way farbadan yihiin haddaan se wax ka tilmaano oo inu hormarino kuwa ruuxa dambiga galaya ka soo gaadhaya dambiga uu sameynayo waxa uu horeeya waxa la yiraahdo mawtul qalb ruuxa qalbigiisa ayaa dhimanaya qalbiga bini aadamku waa xarunta jirka waana xubinka ugu muhiimsan waa meesha nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam uu yiri إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله بنبي صلى الله عليه وسلم حبين كاسي هدوه هجاجو شركة إنتي سكلوا هجاجية هدوه اللابنا أما خرمنا شركة إنتي سكلوا خرمية حبين كنوع عس حرمت أو شركة آدمها إنه لنته أو بختيه وحكينا دنبيدا كان نصوص فربضان بمعناها تلماميس قلبك بني آدم كمر وادنتا أو بختي بالنقطة ميدة مر ضاوع بالنقطة
mar waa jirradaayo xanuun baa ku dhaca waa jiran yahay mar waa fayow yahay mar waa ingaga mar waa qoyan yahay yani xaalado kala gedisan buu leeyahay qalbiga bini aadamku qalbiga dhimashadiisa waxyaalaha keena marka waxaa ka mid a dunuubta ka mid waxa uu leeyahay alimaam ibn mubarak calayhi raxmatullah رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير للنفس كعصيانها وحان أركي يقول الذنبيض إن قلوب تدلان إن الذنب الدائم تؤذا كان نقنين وتشوكتي سنة دلني ما يكون حرسيسا ذنوب طولقت تغنى وقلبي قاقا نولشيس نفتادنا وحا او خير بدن إن وحا ايكو أمري سيحمانتا آذان كييلين ودكو ديدو اياكو خير بدن مر دنبيادو اما دنبيقات قليسا وحو سامين يا قلبيقا لكن سامينتو انتا واكرونانيسا وحو سكو سامين يا إنو قلبيقو وسخوبو وقلبيقو دحليستو oo qalbigu madoobaado وبالتالي qalbigu markuu madoobaadana waxa isaga darmanaya xumaanta iyo samaanta waxa ma kala sooci karo shirkiga iyo tawxiidka waa isaga qasmaya bidcada iyo sunnadii baa isaga qasmaysa dambiga iyo taacadii baa isaga qasmaysa waxa ma kala sooci karay taana waxa keenta dunuubta keento xadiiskii nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis Abu Hurayra ay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam إن العبد إذا أخطأ خطيئة أظنكم مركو دنبي قالوا نكت في قلبي نكتة سوداء قلبي جيسة وحالقول ليا لبيع مذو عدو دنبي وقال كسر النقضة كتوبت كانوا إلهي دنبي داف ويديسته لبيع لي مذو بيد ولا ترى قلبي ولا حاجة ولا صوفية عدو دنبي يكون نقضة لبيع مذو وكلا قرب كذا لقوا سمية لبيعها مذو ويصعونيان dambiga markastuu galana mid baa ku dhalanaysa ilaa qalbigiisa oo dhan ay wada daboosho rasuulku sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku wuxuu yiri taasina waa raanka ilaahay quraanka ku sheegay oo yiri kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun saamaynta ugu horeysa marka dambiga aad gasho meesha ugu horeysa uu dhaawacayo waa qalbigaaga waa xaruntii waa yani ishu markay dambi gasho markaaba falaaruhu waxay ku dhacayaan qalbiga dhegtu markay gasho falaaruhu markaba qalbiga ku dhacaya xubinka marka ugu horeysa saamaynta qaadanaya ee sida salbiga u saamoobaya waa qalbiga qalbigu markuu saamoobo markaba waxa ka dhalanaya noloshiiba marka saamoobaysa xubnihii kare carabkii indhihii dhegihii gacmihii lugihii kulli waxay qaadanayaan saamayntii khaladka ahayd ba marka iyagana ay qaadanayaan laana maxaa weeye qalbigu waa madaxa waa boqorkii xubnaha amrayay way isagu halaaw marka amarka ka soo fulay xubnaha uu siinayo oo ciidamadiisa amrayo waa amar khariban way amar xun buu amray halkaas marka waa arinta ugu khatarsan ee ka dhasha dambiyada uu ruuxu galayo waxa kamida midalan oo qodobka labaad ah ama arinta labaad ee ka dhalata waxa xirmaanul cilmi ruuxa in laga qadiyo cilmiga يعني برشادة قرآنك هي السنة هي علمك الشريعة وحيابها الروح وكوايا وحاكم إذا الدنبية وقليه وعلمك وحلي هذا ونور العلم نور يقذفه الله في القلب علمك وافتين يا النور إلهي قلبك وقليه والمعصية تطفئ ذلك النور دنبك قلي سنة وحو بختينيا أما الدمينيا افتينك النور كأي قلبك قلي لها sidaas daraadeed ba Imam Shaafi'i alayhi rahmatullah ayaa wuxuu hor fadhiistay sheekhiisii Imam Malik markaasuu ku dul akhriyay cilmi uu markaa ka qaatay Imam Malik alayhi rahmatullah wuxuu la yaabay ardaygiisa Imam Shaafi'i iyo nabahadiisa iyo aqligiisa iyo xifdigiisa iyo fahamkiisa la yaabay markaas wuxuu ku yiri inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran فلا تطفئه بظلمة المعصية وحائم قطعين إلهي قلبك قليي نور يفتين علمي إنه إلهي قليي
qalbigaaga ku jira ha ku daminin hana ku bakhtiinin dambi aad gashay mugdi ka dhashay waa kii sidoo kale Imam Shaafici alayhi raxmatullaahi la yiraahdo sheekhiisii wakiic buu u tagay markaas wuxuu uga sheegto uga dacwooday su'a xifdin cilmigii baa igu adkaaday waxaan xifdiyaba waa iga baxsanaya qalbigaygii waxba ma qabanayo maxaan sameeyaa wuxuu ku yiri mushkiladu waa macsiyada iyo dunuubta hadaad rabto cilmi Ilaahay ku furo waxaad baratayna qalbigaagu hayo dambiyada ka fogow buu ku yiri marka in badan in lagu furo iridaha cilmiga waxa hor taagan dambiyada aad galayso marar badan dadaalkaad ku bixin lahayd waxa ka leexinaya yaani dhibaatada ka dhalatay xuquuqda ka dhalatay dambiyada aad galayso waxyaalaha ugu dhibka badan iyo midhaha ugu kharaar ee ugu dhibka badan ee laga goosto ay ka mid tahay macaasida iyo dunuubta la galay waxa kamid ah xirmaanu rizqi in rizqi lagu furi lahaa ee lagu waasicin lahaa isagana lagu xiriiriyo laga qadiyo sida ilaahay cabsidiisu tabaaraka wa taala iyo taacadu ay rizqa u furto ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ضاعده يا الله كعبسغو ارزاق دي فرتا وإلهي تبارك وتعالى محو هاي إريدا فربضان يخسنديه كو فريس بينما معصيده iyo dambigu wuxuu ka xidhayaa arzaaq farbadan oo lagu siin laha ay irideeda ka xidhaysa ciriiri bay keenaysaa marka rizqa in lagu ciriiriyo waxa yeelay Ilaahay tabaaraka wa taala waxa agtiisa yaale khasnadihiisa ku jira waxyaalaha lagaga qado waxa kamid ah adoonku inuu dambi galo dambiga uu galay baa dhici karta in marka laga qadiyo wax uu heli lahaa in tijaaradiisa iyo ganacsiga uu ku khasaaro bal inuu raasamaalkii lumiyo waxyaalo la siin lahaa in Ilaahay tabaaraka wa taala kaga xidho uquubada dunuubtay kamid tahay in adoonka arzaaq uu heli lahaa ay xidho oo sortaagto بإذن الله تبارك وتعالى وحلقة يابا إن مركا قضب كالغاها لضدك غاركو دا إسيلاهدان وضد فربضان وقالاء يكوى الدنبية ووين كتشرك وإلهي بانا قونين بابا أدون قول رزق بضاني سيبا يعني وحوي أي دنبي قول رزق أو حر تانا وحويان قانون كلام ميشا سوق ليو حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم وحو تلماميا ورسولك صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد هداد أركتو إلهي أو سينا يا أدونك وحو تشعليها يا الدنيا أدونك سينا ذنوبت إلهي أو كدوين ويسوغو خلطك قصانها يو أو خربا هدانا وحل السينا يو هداد أركتو إنما ذلك استدراج منه بنبي صلى الله عليه وسلم وحد أقاتها أرنتاسي واسيت ديرين وي ما أها إن تشعيل تشعليها اللوص ما ها إن مصلحتي صلى الله عليه وسلم لكن وحال الرباء إنه أنتو يزيرم هذيو أو إسلكته أو مركه كده بيسقوا ميل خطر مرة يلا قبته الله تبارك وتعالى أدومدي سمركو أرزاق ذا السينة يلا ما مدواي قار وحال الله سيا لمصلحة قار وحال الله سيا أيجو أو لدونا إن لجو يهان أي كر أي معناها أنتي كو خلدما إن مركزي واحد ميل لقى قبته xoga isma hadiyo isdhigto caafimaadka xoolaha waxaan la siinayo xoga inuu isiyara ma hadiyo kadibna isagoo ishalmaansan la qabto waa sunnatul istidraaj balayna qaar badan oo marka Ilaahay ka go'ayo xarigiisa gooyo ogaado dambiye galayo hadana ladan oo la siinayo hadaad aragto kuwaasi meel baa lagu wataa laakiin Ilaahay tabaaraka wa taala adoonkiisa uu jecel yahay marar fara badan macaasi markuu galo khalad galo waxa dhici karaysa iyo kan kalaba inay sabab u noqoto in laga xirmaaniyo ama laga qadiyo Ilaahay rizqiisa tabaaraka wa taala waxa kamida waxyaabaha ka dhasha dambiga aan galayso ama aan galayno waxa kamida wahshatan yajiduha al-aasi fi qalbihi baynahu wa bayna Allah marka dambiga gasho qalbigaaga weheshigi Ilaahay uu heshan laha waa ka didaya qulubtu Ilaahay bay ku degtaa oo Allah ku xasishaa ووحي وهشتا ربيgeeda تبارك وتعالى أو كدكتا ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبigaagu marka dambigaagu bato wuxuu bilaabayaa inuu ba ka didaba Allahi abu
ومعانسي ربي حليل كيسا ومعانسنا إنه بكل باتوضا وبكعر يا وحو دريمة يا مرك قبشو دريمة دقنان شلقان حسيلوني الآن ستريس إصلاح هذا يعني لوشي وخراراته مربى هدو قلبي يقول ربي أبو تردده وكعرره وح بدلي كرنا متشرو الدون كوحي يلا أردن هدي لو وضسيه بدل أمر نقون كرام بوسكا ومجلي كرام حيالها كانوا حكم ذا ذنوب تحكم وأدون كمرك دم بيجي صبته إلهي تبارك وتعالى وقل دجنا شيء قلبك أيوه وايا وهالشيء ربي وايا حسلوني دي باللومينا يا وبالتالي نرشي با يحليل كل قنيس نرشي با كعلية ميسا هي دي رب النعيا معانكي بوايا حسلوني دي بوايا نرشي مركب قوات كانس وحيالها كرنشة أي كميت وحكم ذا وتنشنات نقول كاريس وحكر لنا سيدنا الوحشة بينه وبين الناس روحه كدد يا وكعرر يا دتكي ونوانك سنة دنبي وقلوي أخيارتي وكعرري أهل الخير كي وكعرري قوبه مساجد مالي خير كي وكعرري وحكم بدلنا يا مجتمع انت سيدتي صاحب حن إيه قلح حن إيه حزب الشيطان إيه بلايك لتك يا محوها هاي يا الله أقول له بحرية انت أهل الخير كي خير كي وكعرري حيكر الله تيدم بوقلي مالين بو حول حارانة حني مالين بو سحب قدبي مالين بو تلاوح قاضي مالين بو واجب ضيعي مالين بو دنبي قلي هل كان دنبي بالغيابة إني كرلته إن إلهي إهل كي سبعة كعررت وقلبي أبو كدق يوادو هشون ويدو ولا تشوقي دودو كلبته وبالتالي أتكون بدلت مركة مجتمع انتي سليدة وحشدها سي مركة وحيالتها إيضا الدنوب تيكرلتها ومركز دنبي حزب الشيطان كاسد قليسا حزب الرحمن ولما تكعريسا مركز دنبنا ويبسيئت كان ووحا دعي كريسا إن حتى مركز دنبي أدي إهل كاقي أتكالبودا والذنوب توحا كرلن نبي قصيدة كسوة صلى الله عليه وسلم أدي الروح وإسجعلها وإسنعي وكالفادي أدركت وأن دنبي متكود قليب الرسول صلى الله عليه وسلم أدي حاس كاقو إسجعل وإسكول لذن يا تدركتون ريركي وكالبودي وقرت إسكوتشرا ودقنانشيه اللومي وحدي ريركي كالكعلدي كالسوني دي ماشا كبعضي حقيقة كتمت وأدن بياد قش أما أيضا قشي أما هذا قلي أما وضا قشي والنتيجة وي مراءات قوصان يسوي واحد أضوق سميسي أما آت سميسين أتكا قوصان يسوي والمركة قاركود واحد أركيسا عرورت هذه بعدو ما رواي بس إذا نهاي ستبا عرورتي با وابدو ما رواي با أيجي بابا وحي كون نقوني يام بعقوبة كون نقوني كعنت هذه كبحين كري ويدي كل رفاضي والبهار كودا مروك تودا مستقبل كودا لبا كويس ليش معي كنت تمد إلهي كم الظلمينه دنبي أدق شيء مكنش لأن واحد إلى هذا روح مركو إلهي تبارك وتعالى حفظيه إلهي با إسجنا دنيه سي أهل كيس أحفظيه يحفظ الله يحفظك مركو إلهي وأدونك ضيعه أو يعني أوامرتي صديعه أو شرعك ضيعه أو ذنوب تقلنا السجن إلهي با ضيعه تبارك وتعالى دنيه سي هوله لوجا شقيلنا ودن فرح لوجا قاضي شيطاني نفتي سي بلايا الوصل لذي مركو وحوي يعني وحوي ريركي سوق جيري عروتي سوق جيرتي ضد أن حتى محوها هاي كل يرنشين باكو كل يرني هاي علماء إلى هذا روحي إلهي عبسدي صبدي خلقي كعبصد روحي إلهي عبسدي صفض زيستنا خلقي كوا وض ضعيف سنبا كل يرني لأن إلهي بتبارك وتعالى قرب كبحي وحصل محي كرنا نيسا ذنوب هذا شيء بكرنا نيسا لقيا ومرك هذه جاي نيسان كل وينين لكن واحد دعي كرته هل دنبي أو تجشي واحد دعي كرته إن الله عقوبة مستقبل كاغو دم بابيس أو فيرسو إبليس هل أمر أو الله هو أودي هل أمر أو شبيه بإلهي تبارك وتعالى وحكمي إن النار
ولي أكواري الرجال الله هل أمر آدم السجود يو سجودي معي هذه مركات في رسالة إبليس حلوجوا تبي هل أمر بوتشبي هذه كان مالك اللي جاي وإن أنت سو أمر تبينيش خطر أنت اللي بعد وجود شرط أمر إلهي عقوبة دي تبارك وتعالى بده ده هيصير بده دق دق يسب وخطر شك ملا مركا وحيالها كرنا شيء كم التهاي إن الروحه قدره نفسي لو قدره أهلك لو قدره صاحبي لو قدره يعني وناجي كالقعيل كي دقنا شيء لقلهم يو ساز درادة بواحد يجري علماء السلف كم ذا إني لا أعصي الله فذلك في خلق دابتي وامرأتي إلهي بان دنبي كجلي مركزان دنبي جيرات كيس مركبة وحن كأركيا وكدري بهيا يعني فرس كيجا يبقاش هيدا يحاس فرس كي هينك هاي إلا يليناي يعني وحوي دبع سنائي بقول ما أنت دم بابا كابا فرس كي بابا بابا فرس كده بيعديسي رتيجة ده بيعديسي حولها ده بيعدودي دمر كده بيعدودي عروض ده بيعدي ونم بابا يسبدليس وانجرمبو المركانو لأن ده تسكور هي وانجرمبو إلى أرنتها سينه كنا لا تدم بأنجلي وحي يفضل ودن أتكاده لكن أنك إن بدون أنك مذا فعلا حالة قوة كدر نوائنا هيستان لكن أرنتان وحويان دقني قفعضي ما اللي قاعدين متقع ما بنقانا مشاكلنا هيستيه بلا يد والحقيقة ها قاعدين إن بدون أنك مذا إلهي من أيضين إنه ولا إلهي محوحا يقل معك حسنا يقول سمي ماشي هذه ميل أنا هم بابنور هذين ميل كلام أيضا صارين لأن مجرن يسدوا حنورن مصائب من عضو الصبابوت وحكم إذا مثلا قضبك اللي حان منكر والروح يعني كجا إيمان كذا لنكر الدنبيض وقليه تعسير أموره عليه أرميه صلوا أتكيه سيدا طاعة الرب تبارك وتعالى يا إلهي كحنانتي سير لجلنتي سو أي ضيسو الرماه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إلهي عدي كبقدا أرنكيسو الله فضيد وكردك عكسي واي روحي إلهي عاصينا أرنكيسو وكو أتكيا قنتبا والله فرا أرنكستا وإسدا وحبا فرمام وحبا فرمام يعني واحد الكيس مرر فرا بدن واحد فضوضه اسكبا يربا كو أتكاني وحبا كو مكلا صعون أيام كل ذلك وحوي سببتيسو وحوا كو أتكاني ودنبي أدقش ودنبي أدقشي هي خلط إلهي كقشي تبارك وتعالى وحكم إذا أسباب وحيالها كرد لنكرة ظلمة يجدها العبد في قلبه قلبي جاجا مجدي أيو قليا مركز دنبي يضبط بتصته وأدريميس سيدا مجدي جهبين كو كلا مع الصياد سيدا بالظلمات يا مجدي لهذا سيدا طاعة النور يا إفتين قلبي جاو جلس يعني واحد دريميسا إن قلبي جاو مذوبادي واحد دريميسا إفتينك يا طلالك يا معانك ضاعة يا ذاتك ورنب اسبدلي مركز قلبي جاو وحتشعلي هاي حمانت وحد كهشا وحي حن يا وحد كدكتا وحي حن وحي إلهي نعبي وقت قول لميسو شركياتك جهلك واجبك ضيعضو دميدو دسكقشو حاران إناد عنتو إناد حبوب آبييلين هلقا سابت كهشاوة وحي طاعها يا وناكي يا خيركي دنهاقها الدنيا قربة وكوكو أتكاية طاعضو لغا حرمانيو أيا كمده ودنبي أدقشي بعد كريسة إن إلهي تبارك وتعالى كاغا قديو طاعة فربضن يا خيرات هلي الهي وحكم إذا مثلا ودنبي كاغا كردلان كرا عمري كاغا إن بركة الله قاض عمري كا إن لقوق قابينا وادع كرت إن أنتي سقو بركة الله قاضنا وادع كرت وحاجر الطاعات كي خيرات كالله السماء إلهي اللي كله هذا قار وحاجر عمري كديرية أما السكة العلماء قاركود وحبيل هذان هذه عمري كاغا بركة بمعنى وحلقية هل صنع عمري كاغا كم ذا سيداد وقفة إلي ستي آخرية الدون إني كاغا في عنت هاي لباتن صنع عمري كاغا كم ذا
dhanka marka laga fiiriyo hal sana ka khayr badan oo ka fiican 20 sano marka cimriga marna barakayn oo waqtigaaga iyo cimrigaaga lagu barakayn marna waxa dhici karaysa xagga rabbi tabaaraka wa tacaala inay ka qoran adoonkaasi hadduu amalka la yimaado cimriga ha loo kordhiyo inta ha loogu daro hadduu sidaas samayn waayana cimrigiisa inta ha laga dhigo 10 ha laga jaro inay sida ilaahay agtiisa soo xaqiiqada ilaahay ogsoon tabaaraka wa tacaala inay tahayna waa suroobi karaysa sidaas daraadeed dunuubtu waxay ka mid tahay waxyaaraha cimriga barakada ka qaada ama gaabiya ayay ka mid oo cimrigaaga baabi'inay طيب فعلا waxa weeyaan cimri aad ilaahay dunuubtiisa ku qaadatay si kasta haduu u dheeriyo wax jira ma لأن حصيلadiisa iyo natiijadiisu maxay حصيلadiisa iyo natiijadiisu waxa weeyaan uu dhamaaday naar buuna ku dhamaaday cimriga maxaa barako u leeyahay marka cimri midhaha aad ka goosatay uu noqday markuu ka dhamaadayba inaad cadaab bilowday oo qabriga lagu cadaabay oo geeridii lagu cadaabay oo cadaab rabbi aakhira aad gashay cimrigaasi cimri ma cimrigaasi waa mid yaani waxa ku dhaami lahayd la anti ba ku dhaami lahayd ka waxyaalaha keena ayuu kamid yahay oo waxa kamid ah midalan dunuubtu waxay beertaa iyadoo kale dambigu waa isdhala dambi baad gashay dambigaasi mid kale uu soo jiidanay cuqubadiisa waxa kamida in dambi kale lagu salido kaana mid kale tuu dhalaya waa isdhalaya sida daacadkuba ay isu dhalaan oo isu jiitaan markaad salaad tukato salaadaasi khayr bay dhalay mid kale ku jiiday wanaag kale ku jiiday quraan baad akhriday khayr kale ku jiiday waad soontay khayr kale ku jiiday daacadkuna way isdhalaan oo way isjiitaan macaasida iyo dunuubtuna way isdhalaan oo way isjiitaan marka waxay yiraahdaan culimadu waxay dhigi jireen inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'a ba'daha yani uqubada dambiga waxa kamida dambi kale in oo ka dambeeyo lagu salido wa inna min thawabi al-hasana ba'daha hasanada iyo taacadii khayrka aad sameeynaysan abaalkiisa waxa kamida hasana kale ilaahay inuu ku siiyo oo iyadii daba socdo marka dunuubta dhibaatooyinka kamid saasarada waxay yiraahdaan yani wax way al-ma'asi baridul kufri dambiyadu sidoodaba waa boosto ku jiidaya ama ku gaadhsiinaya gaalnimada marka ugu dambaysa mid yar buu kaaga bilaabaya waa shaytaanka kadibna kii yara ka yara weyn buu ku gudbinaya kaasina ku kale ku gudbinaya sida dadba mid uu kugu sii gudbinayo kugu sii dhiibayo marka dambe gaalnimo iyo diintood ka baxday buu marka dambe ku gudbinaya marka waa raadadka xunxun ee ruuxa uu ku reebo dunuubtu ay ku reebto ay kamid waxa kamida wax la yiraahdo suul khatima khaatumado ka halaw ogow oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al umur bil khawatim cimrigaaga si kasta haduu noqdo waxaad samaysaba khayr iyo waxaad samaysaba khaatumada iyo waxa noloshaadu ku dhamaatay bay arintaadu ku salaysanta iyadaas macna asal maxaa cimrigaaga ugu dambeeyay maxaad ku dhimatay ma khayr iyo iimaan iyo daacad ku dhimatay mise xumaan iyo gaalnimo iyo macaasi iyo dunuubad ku dhimatay inama al-umuru bil khawatim sidaas daraadeed ruuxu hadii uu taacadiisu badanto khayrkiisu badan yahay khaatumadiisu waa fiicnaataa غالبا الروح الدنبيه بدنو حمانتا قستاي خاتمديس waa halowda khaatumadu waa halowda khaatumadu hadii ka halowdana bas waxa keenay in khaatumadaadu kharibanto halowdo waxa keenay dambiyada waa uquba ka dhalata dambiyada galayso sidaas daraadeed ruuxa waxa la dhihi karaa adduunkiisa iyo aakhiradiisaba dambiyadu waxay ku yeeshaan raad xun iyo saameyn xun bay kugu yeelanayaan bal waxaan dhihi karnaa dibku haysta ma jiro ilaa dambi buu ka dhashay ilaahay kuma dulmiina inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun inaga is dulminay oo khalad aan galnay baa dhibaatooyinkii noo haystaan caafimaadkii haduu yahay caruurtaadii haduu yahay xoolahaagii haduu yahay diintaada haday tahay aakhiradaada haday tahay adduunkaaga haday tahay dhibaato ku haysata ma jirto ilaa adiga galay waa waxaad adigu samaysay midho khadhaad oo xun oo ka dhashay oo goosanaysa haddaan wax yar ka tilmaano dunuubta la galayo taa waa ruuxa saameynta ku yeelan karto waxyaalo kamid ah waxa iyadana la mid ah mujtamaca
dunuubtu way saameyn kartaa iyo dhibaatooyin waaweyn baa ka dhalan kara dhibaatooyin mujtamaca wada gaari kara masaalixdiisa iyo danihiisa guud saameyn kara nabadgelyadiisa saameyn kara caafimaadkiisa saameyn kara deganaanshihiisa saameyn kara dawladihiisa burburin kara cadow shisheeya ku salidi kara masaa'ib waaweyn oo ruuxa dhaafsiisan oo mujtamaca iyo dalka iyo dadka wada gaadha baa dunuubta ka dhashay waana waxa loo yaqaano al-aathar as-sayyi'a lil-ma'asi 'ala al-mujtama'at wa raadadka xunxun ee dambiyada ka dhasha mujtamacana wada saameeya way farabadan yihiin iyaguna waxa kamid oo ka tilmaami karnaa mujtamacaadka iyo bulshooyinka iyo dawladuhu inay halaagsamaan oo baaba'aan dambi baa keena ilaahay inay cuquubadiisu ku habsato ama dhulka lala gooyo ama musiibo samada lagaga soo dajiyo ama duufaano iyo dabaylo ugu baabi'iyo mujtamacaadka in la baabi'iyo waxa keena dambiye ay galeen quraanka kariimka meelo fara badan buu ku tilmaamay shucuub taariikhda soo maro ilaahay uu baabi'iyay tabaaraka wa tacaala oo cirib tiro halaagay waxa keenayna dambi buu ahaa waxa kamid ah aayaadka macnaha tilmaamaya Allah sheegay tabaaraka wa tacaala wa kam ahlakna min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira imisa nuh kadam bayse qawm iyo mujtamacaad iyo shucuub ah oo baabi'inay buu Allah tabaaraka wa tacaala farabadana maxaa loo baabi'iyay wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira dambi ay galan buu dambi ilaahay uu ogaa oo arkayo la socday oo deyn waayeen kaasa keenay in la baabi'iyo Allah tabaaraka wa tacaala aqwaamta waxa kamid uu tilmaamay dunuubtooda lagu baabi'iyay qawm nuh baa kamid waxa kamid مثل ree thamud ree caad baa kamid qawm lut baa kamid quraanku aad uga waramay markii qisooyinkooda laga soo sheekay suuratul ankabut ayaa Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri fa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلم وحالي مجتمعاتك يا أمضها لبابي مد والبدنبجيسي أم بالله قبتي دنبجيسي لجوها لاج لكن قابك اللوها لاج أم باكلا قدسنا قار كم إذا ربي وحولي وحن كوها لاجنون كوبا بيني ضبيله يعني ضبيله وتنحيال وحطورة هي قار لجو بابي قار ولجو قيلي والصيحة قيلا أين حميل كريم بلجو بابي قار كم إذا قول كلا لجوي قار كم إذا الضوفانو ضادت بلجو خربوا بيا لجو قرقي كل جود وسيلة إيه الصواب تبابي إسي هكلا قد سناته لكن لما أنتوا النتيجة ده وين بابي الصواب تبابي إسي نميد بقى هيدو الدم بأي كلام بوه سيدا أصدرات الذنوب ومضاهي بابي إسي أمد الجنيدو هذا أركتب بعضي وتكتي وحباب إيه وذنوب يكشوا وكو وقضب كوبات وحكم إذا مثلا ذنوبته مجتمعات كوحي قصة ميسا نعمة اللي نعموين كأي هيستان وزولسا نقم إيه عقوبات عن مركا هيسنين ويكينتا نعموين كو قومهم سوا حكم إذا ذنوبته أي ماشا كسارته دين تودي إيمان كودا ويبابيسا مجتمع الدين له توصنه أخلاق له أيا دنبي كلي وحلقيا وعقوبة كبلت الدنبي إن النقطة إن الدين تي ويان أو إيمان كي ويان أو خير كي ويان أو الدين تكبحان أما إيمان كودا ضعيف وحيالها رشدي كميت وحكم إذا مثلا إن حولها يرزق بابه برواقع لقول نولا ولا دجنا هنتي بالهيستي ولا لطنا يا دمي بالك على إلهي بالعايسي الله تبارك وتعالى واقرعي مركزا وحكرنا لطي حوله الرزق واسع عيني بابان او ديركتي غاچه يسو بدش ولا ديرك سنه ولا لدنا مصيبه يسو بدش الله تبارك وتعالى قرآن الكريم كا أيو ميلا كميدا كو تلمامي وحانا كميدا أيضاها معناها تلمامي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تصالوا سميني وحو تصالين وقو سميني
magaalo dad ay deganaayeen aamin bay ahaayeen way xasiloonaayeen oo waa deganaayeen risiqooda u iimaanahayo dhinac walba uga iimaanay isagoo waasaca maxay isku haysteen risiq iyo nolol ballaaran iyo barwaaqo oo dhinac walba ay uga iimaanayso risiq uga iimaanayo iyo nabadgeliye iyo deganaansho labadaba waa haysteen maxaa dhacay marka fakafarat bi an'amillah magaaladii iyo deegaankii nicmadii ilaahay waa ku kufriyeen way ka shukrin waayeen khalad bay ka galeen macaasiyo dunuub bay ku kaceen waa kibreen maxaa ka dhashay marka allah tabaaraka wa taala faadaaqaha allah libaas aljuu'i wal khawf bima kanu yasna'un directi iyo barwaaqadiina gaaja loogu bedelay amaankii iyo deganaanshihiina cabsi baa loogu bedelay waxaa ka dhacay marka hal qaxo يعني ني ولوبا ماشي تكون فكر له وحي بابا اي بابا وحي كلا لعك على عرر والله كلا قح ميل بدن با الهي تبارك وتعالى سيده كوس سوره الصبا وكان ربي تبارك وتعالى قصه الريس الصبا ري يمنيد markuu ka sheekeynahay barwaaqo iyo ladnaan iyo deganaansho iyo nabadgeliye haysteen markaas ilaahay nicamtiisa ku kufriyay كدبنا إلهي تبارك وتعالى دقنا شيء ودنا ولا بربرية ولا كلا قحية يا شذر مذرة الله إلهي بك كلا دعاء وحلا وحي بيرئي برواقع هاي إنك كلا باباضي حاس كذا شيء ذنوب يقلين وأمرك مدن إنك هذا قوسنا إنه يا مدن مدان هذا قوسنا إنه هل كنا كيري يسيل عن الرفات كان يكذيت كان يدباتات إنه هاي ستاي وأون مره وتيوه دقنا شيء نبتقليه دي محو هاي رزقي حوله هوشي إصصارنيد آوي وقبتي معاه كذا شيء كلا عرر وإحنا وبابين واتجه وحصلنا وحي كذا شيء نودينا وحلقوا بدلي عبسي إلى الروح وقال إنه حتى كلا فردي ويصير هذا ورطلوا ميو بلا يكون سمير درس كيس كنا بتقليه سعيد كي كنا بتقليه عبسي دي دقناشيه عبسيبونه ديركتينا قاعد يسودش وحي كان لطي بما كانوا يصنعون وحي سمينيه وحكى لك انت سيدو كله وكودها ينينكي شاعركها اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعه رب العباد فرب العباد سريع النقم هذا نعمه هيسته نعمه الى شق كفر عليك معايا لي ذنوبته نعموينك ويزوليان وماشي كساران نعمده waxaad ku ilaalisaayod ku wardiyaysa ilaahay taacadiisa inaad u isticmaasho maxay ilaa Allah tabaaraka wa taala adoomada rabbiga u ihi argoosigiisa iyo cuqubadiisa waa mid degdeg badan waa marka adoo ladan oo isu ka saaranta hadii ilaahay dunuubtiisa laga kari waayo waxa go'an iska kala daadinaysa khasaaro baad isgelinaysa waxaa ka mid ah waxyaalaha ka dhasha dunuubta sida hadda aayaduba tilmaamaysay ammaankooluma oo dalka ammaankiisa iyo dadku ammaankii waayaan kadibna ay isu bedesho xuruub ahliya iyagoo la isku salido iyagoo islaaya ilaahay tabaaraka wa taala ammaankii uu ka qaado waxyaalaha ka dhashay ka mid ah waxaa ka mid ah maalan caafimaadka oo meesha ka baxay isaga caafimaadka oo meesha ka baxo waxay dunuubta ka dhasha cudurro marka dambe daawo iyo xal loo waayo الامراض الفتاكه المستعصيه waxa dhaliyo ka yimaadana iyadana dambiyaday ka yimaadaan xadiidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamaya xadiidka waxa soo saaray muslim wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam daacuunka markuu tilmaamayay cudurka daacuunka leeyahay cudurrada khatarta ka mid in hada alwajع rijzu adabin رجس عذب الله به بعض الأمم قبلكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد بقي بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى برسولك صلى الله عليه وسلم داعونكو سيدو أدونك كوي مذوحوها أمده هورا كمد الدنب إلهي كقشي بعد داعونك لغو عقابي أمده مركي لغو عقابين عذر تشوغا ومرنا يمادا مرنا تقاعيون نقضي عذر كداعون كماشو قال مركي إبر كدغا
asalkiisu wuxuu ku yimid ummad dembi gashay buu ka dhashay bal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka kale waa ka tilmaamaya lam tadhhar alfaaxishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadi faaxishada iyo zinada ma muujistaan ilaa ay banaanka ula soo baxaan ya wadooyinka iyo jidadka iyo meel walba akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada iyo zinada iyo faaxishadu banaanka ma dhigtaan ilaa haday dhigtaan buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ku ibtileeyaa oo ku cuqubeeyaa cudurro iyo daacuuno aan hortoodba soo marin dadka ya waa zinada ya haday ummadda dhexdeeda intay faafto banaanka la dhigto la muujisto cuqubadeedu waxa weeyaan ilaahay inuu keeno cudurro aan markaa xal lahayn rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiska markuu tilmaamayo taqriiban waxa weeyaan waa intuu noolaa 1400 sano ka hor waa laakiin maanta ayaan haynaa midaheeda iyo natiijadeeda rasuulku arintu tilmaamay salawaatu rabbi wasallam markii reer galbeedku ay akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo qiyamkii iyo xishoodkii inta laga tagay sida xoolaha muxuu ahay banaanka la isku roorsada leeyahay oo yaani muxuu ahay sida xoolihii la dhaqan jiray oo kale sinada banaanka la dhigto bal dhowrsoonaanta iyo xishoodka iyo asturku uu noqday wax la isku ceebiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku ibtileeyay oo ayaga cuqubadu ku bilaabatay adduunkana ay galiyeen cudurkan AIDS-ka la yiraahdo AIDS-ka asalahan ayagu ka yimid ayaga lagu imtixaanay cuquba laakiin markay timid caalamka wada gaadhay waa sanadkiiba wuxuu dilaa taqriiban intaas milyan buu dilaa oo gaalo u badan oo muslimiintu ku yaryihiin xagee buu ka dhashay dambiye ilaahay laga galay markaas daawo loo laayay ka kaliya ma kuwa kala dhalan oo Soomaaliyeed hadda mesela dhulkii asalka inoo ahaa iyo deegaankeenni iyo Soomaalida iyo cudurrada ugu badan ee maanta laynaya kansar baa u badan markaad isbitaalada tagto qaybaha muxuu ahaa kansarka waad yaabaysa waa daahira aan caadi ahayn muxuu ka dhashay dambiyada la galay waa cuqubaad rabbi tabaaraka wa taala sidaas daraadeed dambiyada la galay waxa ka dhalanaya masaa'ib cudurro ah oo markaa sabab u noqdo inay dad fara badan baaba'aan oo tagaan ayadana rasuulkeena tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa waxyaalaha ka dhashay kamid waxa kamid ah maalan in xoolaha ay haystaan mujtamaca iyo dawladda iyo shacabku xoolaha ay haystaan iyo caruurtooda iyo risqooda kulli barakada laga qaado waxa kamid ah maalan in ducadooda la aqbali waayo inta muslimiinta gacanta uma la taagahay sibaan haysatay ilaahu naga qaad lama qaadayo waxa loo qaadi lahayn laana dambiyadeeni ba waxay gaadheen in waxba leeynaga aqbali waayo waxba leeynaga yeeli waayo way dhacdaa oo nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xumaanta mujtamacu qaar kamida ay sameynayaan iyo dunuubta la galayo hadii la reebi waayo warkadaaya la dhigi waayo oo la isu aamuso mid sameeya iyo mid u aamuso qaade iyo qariye markii la noqdo wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaad gaadhaysaan heer intaad ilaahay baridaan la idinka aqbali waayo dunuubtay ka dhalataa in ducadaadaba la aqbali waayo waxa kamid ah maalan in ilaahay tabaaraka wa tacaala dhibicdii samada ka iimaanaysay la isu diido abaara la isku ibtilay iyadana waxa jira dunuubta qaar keena oo abaarahan iimaanaya soo noqonaya badanaya inta badan iyagana dunuub bay ka iimaanayaan waxa kamid ah maalan in madaxda iyo saasada iyo dawladda iyo hoggaanka dad xun laga dhigo la idinku basalidaba يا ورنيمان كان خريبان مدحدان خريبان بلا يدن ضدك وحي لايين دول يفسدان يا قالا اي لهشيان يا امدي كلا قخيان وروحان معايا هي وا دنبغيني ميل فوق قرادين يا سيئه من سيئاتنا annagana wax weeyaan iyaga uun baan ku salidanay qaabkii loo sixdaana qaabka ma madaxan khariban ee wax dilahaya ee wax baabiinaya ee wax burburinaya ee ummadda iyo dalkeedaba gadanaya
xageebu ka yimid wuxuu ku yimid dambi la galay oo mujtamacu galay natiijo ka dhalatay waa waxyaalaha iimaanaya ka mid tahay dawladuhu inay kharimaan iyo madaxda waxaa ka mid ah maalan waxyaalaha ka dhasha tasliitu al-a'daa 'ala al-umma in cadow shisheeye aba lagu salido lagu gacan geliyo dalkaaga loo gacan geliyo khayraadkaaga uu boobo ku gumaysto sidoo doona ka yeelo iska kicin weydo tabar u weydo adiga dhanba gacanta lagu dhigo muxuu ka dhashay dambi aad gashay shacabka galay qaar baa galay way u aamuseen khalaas ayadana waxyaalaha nataa'ijta ka timaaday kamid waxa kamid ah waxyaalaha ka dhasha dunuubta shacabka ee mujtamaca saameyn kula wada yeelan karaya waxa kamid ah in ilaahay iyaga dhexdooda isku salido qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd alla wa awooda in samada uquba idin kaga keeno in lugaha hoostooda la idin kaga soo saaro iyo in inta qaybo la idin ka dhigo la isku kiindiro dhexdiina aad birta iska asashaan qabaa'il islaynaysa kooxa islaynaya gruubyo isbaabiinaya ya hardanka ay hardamayaan in badan bay cagta marinaya ayagiina isbaabiye marka dhexdiina in la isku diro oo midnimadii aad weydaan oo kalsoonidii lunto oo walaalnimadii lunto oo muxuu ahay aad noqotaan wadad iscunahay ayadana waa uquba ka dhalata dunuubta iyo macaasida qaar kamid inta soo dhan waxay ku iimaanaysaa hal xadiis oo xadiiska Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay nabiga nagu soo jeesay sallallahu alayhi wasallam oo soo qaabilay markaas wuxuu yaa macshar muhaajiriin khamsun idha ibtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna shan arrimood marka la idinku ibtileeyo ilaahay baan magan uga ahay oo ka magan galaya inaad gaadhaan shanta arrimood maxay tahay lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja'u lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw fahishadu haday ummad dhexdeeda ku faaftiyo zinadii xumaantu cudurradaasi aan يعني وحوي داود الله بين إلهي كوي بتلاقيه قضب كاللوادي وحويان ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه هذا يدتك السوق يضوضا ميزانك هالبيقر هي ميزانك هذا النسقاميان وحقوق ضودي إساسيين ويا يعني السوق يدي قابك وحلوك لقدنا أيا ظلمي كدعي كي وح ميسامة هي ميزانك بدتك كدل مني كي وح بيجا هي بيجي بدتك كدل مني كي درك إيبين هي در فالساب وإيبيني ما قاعد يحن بارسين ومعذو ولا قشة يا سوقي بفساد كدعي مركي تاسي دعدنا إلهي تبارك وتعالى وحقوق قبتا ومدة يعني وحلي هذا أباره إيوه نلشوا كأتكات سعر بر ينورشي اللقوي واي هي أبارة عن كلا قول هاي با إلهي كو ابتلايا مركي سوق فساد وحاكلوا اللقوي ابتلايا وكرشا وجور السلطان جور السلطان مضحدة هي الدولة أو جائر كل نقط مضح خربان وعدالة كتكتو حتى ويجي حقوق دي أن جدنين واللقوي ابتلايا وحنا بيقول صلى الله عليه وسلم قضب كحجا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا هذا الزكاة حوله هذا الديدان ويبحي ويان أيضا إلهي وحقوق الديدا لبيعلي السماء كإيمانيس سكدي بالبحي ويان حقي بالقدواي مساكين إلهي وحقوق أيضا جواب كبحيا إنه لبيعلي كور كإيمانيس بالله الديدا مرمر وحقوقا إيدين دا أهيا حيوانات هي بهائمت هي عيانات كأن دنبي لهين با إلهي سينيا وإلا ما بيستاهي شام بإن روب لا يدسي إذن كو زكدي بحين له مساكينتي أمنا حريسان له وكيد دن ليدي يددك الرفاة صلى الله بفير سنة إنه إلهي نبيع يدسي ما يستاهي شام لكن إنت لا يدسينا يبا وحلو قلت لك لي مخلوقات كان دنبي لهين ماشا كله marka waxa ka dhashay abaaru waxay ka dhashaan sakado la tiido waxa kamida xadiiskaasi nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam walam yanqudu ahda allahi wa ahda rasulih illa sallata allahu alayhim aduwan min ghayrihim fa akhadha ba'd ma fi aydihim
hadday ummaddu ballanta jabiso ballanta alle iyo ballanta rasuul maxaa laga wadaa ballanta dhexdooda ay wada gelayaan ama ballanta xataa ay la gelayaan ummadaha kale gaalada xataa ay la gelayaan hadday ballanta jabiyaan oo ku ciyaaraan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sallidaa cadow aan iyaga ahayn markaasuu wixii gacantooda ku jiray ka qaataa waa saas ila diinteena maxaa asal u ah in ballanta aad ilaaliso ballanta ama muslim la gal ama gaal la gal ballanta ilaali haddaad ballanta ilaalin weydo cadowgaaga adaa isu jabiya dad ballantii ka baxdo xataa midkaad ballanta uga baxday gaalba ha noqdo waxaa ka dhalay in gacantiisa lagu geliyo oo ilaahay kugu ibtilayo tabaaraka wa tacaala inuu kugu sallido waxyaalaha ka dhalanaya ka mid ah dunuubta qaar ka mid ah oo caalamul islaami maanta dhibaatooyinka haystay kowkata wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam isla xadiidka qaybihiisa wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم مدحضودي دولدهودو هدي إلهي كتاب كيسا كون مامولي ويان وشريعة الإسلام ككل قوايان أيضا وحا كدلتا إنه إلهي لباتا لحظوضا لغو لسكو كيندرو برتا إنا أسكا أساشا حقاي كدلتي شريعة دي بات كتكتي يا دستور يا قوانين قال الله سو إرقستي محكمة الله دكتي diintiina meel baa la iska dhigay waxa la yiraahdaa kitaabkan iyo sunnadan iyo diintan aad sheegaysaan oo dhinkii masaajidka galayo hawl ku taalo waay masaajidka meelahaas muxuu ahaa wadaadada u tag laakiin maxkamadaha iyo dawladda iyo nidaamka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dastuurka iyo taasi wax way shuruuc baa loo dejistaa ilaahay kitaabkiisa maxaa meesha geliyay war diinta ka daayay siyaasadda diinta oo saqaynina lagu leeyahay ama diintii uu naxayaa miskiinka waasaas heerka markaad gaadhaan ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa wuxuu idin ku sallidayaa dhexdiina dhibaato ka bilaabanaysa wala isku kin sallidaya marka waa midhaha aan goosanayno in reer iyo qabiil iyo deegaan iyo koox iyo maalintii fayl u soo xidhmaba fayl cusub la inagu furo waji markaan la qabsanaba waji kale hadana la inagu furo asalkeeda xagee ka timid dawladihii dhisnaa baa diinta ka tagay bal diintii bay la dagaalameen oo warkada ay culimadii tiri bay laayeen oo mujtamacii baa u aamusay xogaa markii mid qabiilaysta yimina waa la garab booday markii diinta lagu tumanayayna nuur lagama dhihin waa mid sameeyay iyo mid qariyay natiijada ka dhalatay ayadana waxay noqotay in la isku keendiray kaligeena mee caalamul islaami oo dhamad arkaysa caalamul islaami meeshaad martaba meeshaad fiirisaba dhexdooda dhibaato inta iyaga dhexta laaba ku filan ayagii ma qoorta isugu jira bal meel kasta fiiri maxay sababtu tahay caalamul islaami kitaabkii ilaahay iyo shariicadiisa inta laga tagay baa reer galbeedka laga keensaday shuruuc iyo dasaatiir la isku dhaqo tii rabbana waa la fogeeyay iyo kitaabkiisii halkaas ay ka timid marka in dhexdooda la isku diro marka xuquuqaadka mujtamacaadka soo gaaraya dunuubta ay galayaan ka dhalanaya kamid waxa kamid ah mujtamacaadka waxyaalaha soo gaaraya ee ka dhalan karaya dambiyada ay galayaan bini aadamku cuquubada ka dhalanaya dhibaatada ka iimaanaysa xataa iyaga kuma ekaanayo xataa wuxuu saameeynaya makhluuqaadkii kale dambiga lahayn xoolihi iska noolaa cayaanaadkii xayawaanaadkii shimbirtii duulaysay waxa soo dhan waxay u rafaadahayaan dambi aan galayn waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وحا فساد بدء بري وكدعي وبني آدم وحي كسبدين وحكنا شيء لباتدين حتى ضدك وحن جارسيني مخلوقاتك كلام حتى جارسي وحكم ذا وكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اسكدنا نورها معه حتى مخلوقات كان كلام نقول لبن ملائكة من الجوتاي ذنوبتنا وكل بنت دول كان أن كسرناي دنبيجنا وادبيا سمادا وادبيسا بورهاني وادبيا لأنه مخلوق إلهي أطيع سوي مخلوقا إلهي أطيع سني ذنوبت آدمه وادبيا سيداس دراده أيا الله تبارك وتعالى مركي نكل ريتشر فرعون يقوم كيسي لبابي الله وحي يري فما بكت عليهم السماء والأرض سمادنا أمؤوين دولكنا أمؤوين وحميشة لقى فهم بيليه سماد يدلولكو وحي أويان ضدك الصالحين تيوان وناكسن لمشهدهم لكن انت حن باب انت هذا ويكون فرحان
حديث النبي معناها فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم إن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أظن كفاجر كدنبيله خربا مركو دينتو وحا كراحيست أضومدي دولك إيا بلدك كراحيست geedaha ka raaxayso ka nast hatta xayawaanaadkii intii dhulka ku dul socotay oo dhan ba dhimashadiisa ku nasanay waa faajir oo say ku nasanay quraanjadaasi godka ku jirtay dunuubtaada ay ku rabaadsantahay wax kale iska daa sidaas daraadeed inaad dhamatood adduunka dhaafto fujuurkaaga la dhaafto kulli waa ku wada farxaya waana ku wada nasanaya sidaas daraadeed ibaatadeennu xataa waxay saameynaysaa makhluuqaadkii kala dhibaato u geysanay waxa kamida waxyaalaha ka dhasha dambiyadeena waa oo mujtamac wada gaaraya kathratu zalazil dul gariirka faraha badan iyo fitanka iyo dabaylaha iyo casiirta wax burburinaysa iyo sidoo kale daadadka iyo duufaanada fayadaanaadka maalinta ka dambaysa soo kordhaya masaa'ibtan bini aadamka ku dhacaya saameynay marmarka qaarkood dawlado baabi'inay marmarka qaarkood laga yaabo boqolaan kun inay baabi'iso sida tsunami oo kale waxay ka dhalatay dambiyay ka dhalatay makhluuqaadkaas aad arkaysaan waa ilaah ciidamadiisa wama ya'lamu junuuda rabbika illa huwa dhulku waa ciidan alle oo baddu waa ciidan alle oo buurtu waa ciidan alle يا وعيدا ما إلهي مركي ربي قود الله عاصيه أمر بو الله سينيا بداسي هالمر بيسروجيس يا دولك هالمر يسقويني يا وحنا إلهي تبارك وتعالى ضمضوا كعنتك وهايو وحني مركا وحي كربلنا يا بني آدم كبابئينيا وذنوبتي معاصيك وإيماني بالقريرك ضبيلها أبارها مصائبتهم ووين دعيا وحيكو إيمانيان وذنوبتهم warka marka la soo ururiyo wax weey ama qoys ama fardi ama mujtamac ama shacab ama dawlad dhibaato haysata ma jirto illa dambi la galay buu ku yimid adduunka waxyaalaha ka dhacayo dhanna waa waxaynu kasbanay ma asaabakum min musiiba fabima kasabat aydiikum waa waxay gacmihiinu shaqaysteen hatta wax kale iska dhaaf goobaha dagaalada oo gaalada lagu la dagaalamayo oo lagu jabahayo dambi baa keenay dagaalkii Uhud markii amarkii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada qaar kood ay jabiyeen kulligood ma wada ahayn war meesha joogo waa ka soo dhaqaaqayna hatta hadda aragtaan anagoo yaani wax weeyaan ay haadu ay hilibka naga cunayso halka ka soo dhaqaaqin waxa la istusay waa la ijtihaaday meesha laga soo tagay amarkii nabiga jabiyeen ayaa waxa ka dhalatay dagaalko markii hore ay ku adkaadeen qaybtiisii hore inay ka faddo hal mar isrogto markaas rabbi ka hadlay tabaaraka wa taala waxa leeyay awalama asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hada qul huwa min 'inda anfusikum see waxaan inoogu dhaceen baa timid see naloo jabi see musiibadani ku dhacday allah baa ka jawaabay wuxuu yiri idinka la yimi qul huwa min 'inda anfusikum hatta lama dhihin gaaladii aadisayseen iyo ciidankii baa saa idin galay lama dhihin eeda xaqooda lama saarin laakiin eeda yaa la saaray sababtii arintani ku dhacday ninkii lahaa baa dambiga la saaray waxa la yiri idinka khalad kala walaqad sadaqakum allah wa'da walaqad sadaqakum allah ilaahi tabaaraka wa ta'ala wa idin fulay ballantii uu idin qaaday wa idin fulay laakiin xagee wax ka yimaadeen hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ديكو حكيمت إنك خلطك كله واد عاصلين دمي بعد قشين واد شبتين ماشا يا كتغي هل خلطوا صحابة قار كم إذا كان عيبا وحا كتغي إلى تضبات كبدا وخيار الصحابة با كتغت وماشا سي شهادة قاتل لقول لأي واحد قراني إذا مركا ذنوبتو saamaynta ay leedahay qoyskay saamayn oo caruurtay saamayn oo dhaqaalahaagay saamayn oo mujtamacay saamayn oo dawladay saamayn oo meel reebaysa ma jirto taasi waa dhanka adduunyada aakhira markii la tagana
taasi sha'nigeedu waa sha'ni kale waa saamaynteedu adduunkaaga hadhi mayso geeriday kugu sugi oo saan soo sheegnayba khaatumadaad ku dhimanaysay saamayn ku leedahay oo qaabkaad u dhimanaysay nafta lagaaga qaadayay saamayn ku leedahay oo godka aad gelaysay qabrigaagay saamayn ku leedahay oo qaabkaad uga soo baxaysay nolosha dambe ay saamayn ku leedahay ilaa waxay kula soconaysaa ama ay naar kugu hubsato ama ilaahay ka badbaadiyo tabaaraka wa tacaala laba midna waa ama waxay keeni kartaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaab inta lagu mariyo gadaal dambe wixii inta lagu muxuu ahay lagu cuquubeeyo lagu ciqaabo lagu gadaal dambe laga saaro ama waxay keeni kartaa inaad kuba waarto haday dunuubta waaweyn ee waaritaanka naarta keenta kamid in ilaahay ku xafiyana waa wax suuroobi kara tabaaraka wa tacaala iska ka saamaxo laakiin laba gooraba natiijadu waxa weey aakhiriya adduunba dambigaagu saamayn buu kugu leeyahay waxaad u baahan tahay marka in aad is ilaaliso oo khaladkaad galaysa iska ilaaliso oo afkaaga ilaaliso oo adinkaaga ilaaliso oo calooshaada ilaaliso oo farjigaaga ilaaliso oo aad ilaahay iska ilaaliso tabaaraka wa tacaala inaad is ilaaliso bini aadam baa tahay hadaad khaldantana alla irid buu ku furay soo noqo toobadkeen toobada isku ilaali marka hore is ilaali oo dariiqa ku soco oo khaladka iska jir waad khaldantay Soomaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma tuurina soo noqo ma sameeyaa laakiin waxa la yiri dambiga markay galaan waa is xusuustaan way ka soo laabtaan kuma madax adaygaan ayagoo og inuu dambi yahay waa soo laabtaan oo way toobad keenaan sidaas daraadeed si aathaarta iyo raadka dunuubta loo rafciyo hadduu mujtamac haysto hadduu dalka haysto hadduu adiga kaliya ku haystaba waxay la yiraahdaa yaani wax weeyaan masaa'ibtu waxay ku timaadaa waa dunuubta waxa lagu kor yeelana waa tawbada توبت بمرك إنه أفرن ينا إلهي وصلنا قلنا تبارك وتعالى سي إلهي تبارك وتعالى لبعضهم هيستنا إنه وقع قاضه تصص عتان إلهي تبارك وتعالى إنه قد فعيه هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.